السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa inoo wadaa wax ku farxad gelin doono insha Allah. aad ku farxad gelin doona runtii wax badan noloshaada ka bedeli doona hadduu Ilaahay raali ka noqdo. maanta waxyaabahan aan wado guri walba way yaaliin waxaana ka sameeyay wax iska basiit ah guri walbana yaalo. waa kana oo jeedin waxaan ka sameeyay caano inta noo yaalo malaba inta noo yaalo inta huruuda noo yaalo malabka iyo caanaha iyo huruuda maxay tartaa waa la wada ogyahay maasha Allah. malabka jirka wax badan oo siiya oo daawo waaye. caanahana maasha Allah sidoo kale ay asin fitamiinada laga helaa jirka wuxuu ka maqan yahay siiya. huruudana waaba organic maasha Allah. waxyaabo badan loo isticmaalaa daawooyinka lagu soo daraa. hadda waxa u baahanahay qaadadan oo jeedin qaadada cuntada waaye. qaadada caadiga oo cuntada waaye waatana san waaye. hal qaado oo waxa u baahanahay oo malab ah u baahanahay koobkan oo ku shubanaa hal qaado malab waxa kale u baahanahay qaado yariis oo huruud ah. waa u baahanahay qaado yar qaado weyn marabo huruuda. qaadada yariista ay ugu filan waa u jeedin qaadada yariista waaye oo ilmaha lagu siiyo. hal qaado u baahanahay waa kaasa oo malabka ku dhex shubanaa waxaa kaloon u baahanahay caanaha inaan ku dhex darsado. caanaha way karkarsan yihiin qabow ma ahan. caanaha way karkarsan yihiin waa isku qasaa. hadda waa isku qasaa caanihii huruudi iyo malabkii isku qasaa. runtii caanaha iyo malabka iyo huruuda jirka waxyaabo badan ay ka bedelayaan qofka bini'aadanka. waxyaabo badan oo ka bedelaa. waa daawo aan la ogeyn. koobkan yarka ah waxyaabo badan ku jiro oo daawo ah. maanta daawada hadii waa la sheegaa la dhaho yani ma soo koobmayso daawada meesha ku jirto. daawada meesha ku jirto waxaa ka mid ah in quumanka dadka quumanka qabo oo mar walba quuman kusoo kaco maasha Allah aad ugu fiican yahay. quumanka markay isku xanuunayaan uu ku degayaa insha Allah wuu degayaa. aad ugu fiican yahay quumanka. xataa waxaa loo isticmaalaa dadka tayroodka qaba oo dhuunta uga taalo maasha Allah way isticmaali karaan huruuda. waxa kale u fiican tahay dadka caadada ku dhibtooda. koobkan noloshaada wax ka badan ka bedela. dadka caadada ku dhibtooda oo xanuunka dhabarka ilaa wareega dhanka cawaada maasha Allah aad ugu fiican tahay koobkan huruudan caanaha iyo malabka la isku daray. wax badan ay noloshooda ka bedelaysaa insha Allah. xanuunka wuxuu noqonaa muqtafi yani xanuunka wuu biiba insha Allah taala. waxa kale u fiican tahay ninka raga waxay ugu fiican tahay biyaha degdega maasha Allah. aad ugu fiican tahay runtii wax badan uu ka faa'iidi doonaa insha Allah taala. haday baashan faraska dhiga weys xaajiyo ha islaamin waan ii soo duceyn doontaa xaajiyo samayso xaajigaaga insha Allah. wax badan oo noloshiisa uu ka faa'iidi doonaa. wax badan adigana ku duceyn doonaa anigana ii soo duceyn doonaa. waayo wax badan in noloshiisa ka bedeli doontaa. koobkan waa u jeedin soo u ekaaday wuxuu u ekaaday mango camal oo la shiiday. marka haruuda waxya anaga jirka basa marsanaa oo waa isku qurxinaa. laakiin waxyaabaha kale ay leedahay ka badan caafimaadka kale loo isticmaala ka badan haruud runtii. dadna way karkarsadaan dadna caanahay soo karkariyaan kaliya iskugu daraan. ani ma karkarsadi haruuda sideeda meel ku shubtaa koob ku shubtaa sidaan oo kala samaystaa. sidaan oo kala afdal waxa markay karkaraan xogaa fitamiinaadka ka baxaayo oo daruuriyaadka ah. marka ani ma jecli karkarka ani sidaan ku jeclaa sidaan ku isticmaala. marka xaajiyo noloshaada wax badan ay ka bedelaysaa insha Allah. haruuda caanaha malabka habeenkii insha Allah ama maalintii intaadan howlgelin nus saac ka hor isticmaal insha Allah. noloshaada
wax badan ee ka bedelmi doonta hadduu ilaahay raali ka noqdo. koobkan wax badan uu ka bedeli doonaa, anigana waa iisoo ducayn doontaa. xaaji adan ninkaaga siiso wuu ku ducayn doonaa insha allah, wax badanna noloshiisa ka bedel. ninka ragga ah waa u muhiim in nolosha qaaska ah uu iska dhiso, waa shay muhiim ah oo maanta lasoo koobi karin runtii. guryaheena waxay ku burburaan 99% waa la wada ogyahay. annaga Soomaaliyaan nahay, wixii runta ah waa kala gabanaa, waa ka xishoonaa, laakiin looma baahna runta in laga xishoodo. koobkan noloshaada wax badan oo ka bedeli doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo. koobkan wiilow noloshaada wax badan oo ka bedeli doonaa. koobkan isku day inaa mar walba aa isticmaashid insha allah. halka aad nagala socotaan waa channelka Jawaahir Xuseen. anigoo Jawaahir Xuseen waa idin soo gudbinaa insha allah. mar walba waxaa igala socon doontiin